Holy, look at all this shit! السلام عليكم صاحبيال وأنيقو عباسة أو مركلة حلقة عصب نيسو قدبينايو انت حلقة أقدبين وحان نيقا مهد علينا سيدي جنالك أطاقرتين أصبورت كريسين لما أنتين بمهسندين صاحبيال سي حلقة أبلاوان أنا أضاوان أنكو صلين حبيبكين رسولكين صلى الله على آله وأصحابه ومن تبع لإحسانه إلى يوم الدين أنا أدعين ولا لهنا فلسطين إلهي دبكي هراتك حكا قاده sidoo kale inta xalqadiina aan bilaaban diyaarso jibsigaaga ama daangadaada si aad ugu raaxaysato haddaana daawan xalqada la soo dhaafay marka hore xalqadaas soo fiirso si aad tan u fahanto bas wixii hordhaca intaas noo ekay xalqadiina aan bilaaban marka aadanuhu boqol sano ay waxay ku noolaayeen saddex darbi loo yaqaano Maria, Rose, Sina. darbi kasta sidii in muuqato wuxuu leeyahay afar qalco. afartaas qalco oo mid walba magaalo ah, sida magaalada Shiganshin oo hore u soo aragn oo kale. qalcadii ugu horeysay darbigii weynaa ee Maria oo aad lagu baaba'ay. meedadkii meel walba wada daadsan oo duko iyo dugaaga iska cunayaan. halihii kale ka soo haray aadinayaashii ku noolaa magaaladii Shiganshina oo looga baahan yahay in si dhaqsi ah ay ku tagaan albaabkii darbigii weynaa ee Maria laakiin xumaatada maaha ka jirta wuxuushtaan Titaniska oo horarka ah inaa ka cararto iska daayay kama dhuuma kartid xataa sidaas daraadeed si kasta ay ugu soo baxsan karaan waxaa looga baahan yahay inay tagaan albaabkii darbigii weynaa ee Maria si ay ugu qayb galaan dadkii loo gudbin lahaa darbigii labaad ee Rose laakiinse dadka doomaha ma wada deeqaan sidaas daraadeed dadka kale oo lagu tixgelinayo in ay sugaan inta doomaha kale dadka lagu qaaday ee ka soo laabahayaan Armin iyo awoogiis waxay saariin doomaha mid kamida Armin wuxuu raadinayaa Mikasa iyo Eren oo wali soo gaarin meesha doomaha laga raaco Hannes wuxuu doonayaa in doomaha maha ku sugan oo si dhaqsi ah u geeyo Mikasa iyo Eren Hannes fer inuu gariyo wuxuu ku leeyahay iga fuqfuleeyo waxaan oran daraadaada ku dhacin hooyadii daraadaada u dhimatay iga fuq Hannesna inuu Eren iska dajiyo ayaa Mikasa u cararey Hannesna inuu Eren u maad wuxuu ku leeyahay waxay radaa ku sheegay ka hor Eren inuu xanaaqo fer la soo haado oo Hannes iska qabaa Hannes wuxuu ku leeyahay adiga cunigar oo geesi baa tahay Eren laakiin sababta aniga ugu biiri waaya ciidanka sahaaminta oo ugu biiray ciidanka darbiga ilaaliya waxay tahay in aafulay ahay wax matara sida adiga sheegto oo kale Eren hooyada cabsi iyo heesa daraadeeda u dhimatay ee iska cafi iga raali noqdo nafkan aawooda inaa badbaadiyo ma jirin aan labadiina ka ahayn Hannesna markaas uu ku guuleystay in Eren iyo Mikasa soo gudbiyo doomaha maha ku sugan laakiin Titaniska way soo dhawaahayeen ayna qarka u saariyeen inay u soo gudbaan darbigii weynaa ee Maria sidaas daraadeed waa inay madfaco u adeegsadaan si ay waqti ugu helaan inta ay dadka u gudbinayaan darbiga Rose laakiinse dadkii cabsidooda aad u sii ziyaaday oo ay doomaha intay buuxsameen aana sugi karin inta ay ka soo laabahayaan laakiinse kuwa cawaan ay waxay sameynayaan waxay rabaan darbiga Maria inay xiraan ayagoo dad kale maaha ku dhiman yihiin Hannes inuu cawaanta u tago wuxuu ku leeyahay ma ciidanka darbiga ilaaliyo maatiyo mise calool u shaqaystayaal ninkan wuxuu taagan yahay anugu halaan kadib irida inay furnaato uma ogolaan karno Titaniska wayna soo foodhayaan wixii eedna dusheena ay ku dhacaysaa isla markaas laba nin ayaa ku wargelinaysa in Titaniska ay soo dhawaadeen wuxuu leeyahay warkan ku dhanay irida naga xira boobsiya Hannes cili intoo maaga ay qabanayaan labada nin gadaal ka imaatay laakiinse waxaa la yaab ah waxay maqlayaan cod sida socod oo kaleete laakiinse socodka weyn ma Titankii weynaa ma mar kale soo laabtay markaa si fiican u fiirina maba aha Titankii weynaa waaba Titan nagu cusub oo asig dhan gaashaan u eg laakiinse shakalkiisa aad u xoog badan Titanka inuu orod soo jabsaday wuxuu soo ordayaa dhinacii darbiga albaabkii weynaa ee Maria kaale kanna inay ku daraan rabaan ilaaliyaasha darbiga si kastay u joojiyaan waxay ku ridayaan madaafiic laakiinse waxaas kama taraa asaaba Titankii gaashaankii ah wax kama qaban karaan wadadiisa ee wacd inay maha ka kala cararaan uroon sidoo ugu soo ordaya xawaarihiisa isbiidkiisa iyo xoogiisa ugu dambeyn way u suurta gashay in uu dumiyo albaabkii darbigii weynaa ee Maria oo aadanuhu sidaan ayay ugu dhamaatay hadda gudaha darbiga Maria oo dhan waa lagu hareersan yahay dhinaca labaad koonfurta ee darbiga labaad ee Rose madaxda ku sugan ayaa lagu wargeliyay in Titaniska ay soo dhaafeen darbigii weynaa ee Maria ay u soo gudbi rabaan darbiga labaad ee Rose Hannes wuxuu dhahay aadanaha sidaan ayay ugu dhamaatay boqol sano waxaa ka soo kabsayna mahan ayay ugu dhamaatay waxay taagan yihiin wax walba waa iska fiicneed waa iska shaqaysanayeen guryaheena iska joognay waa iska faraxsaneen wax walba si fiican noogu socdeen intee musiibada nooga imaatay markaasna Eren wuxuu soo xasuustaa hooyadiisa oo si kalgacayl qurux badan ula dhaqmi jirtay hadal walba ay u sheegi jirtay iyo wax walba ay ugu digi jirtay isla saacadaas markaas Eren go'aankiisa ugu weyneed noloshiisa ayuu qaadanaa Eren inuu Armin iska leexiyo ayuu balan wuxuu ku qaadaa
in eeyahan eeyuhu dhalo uusan halka fiigeenin. xanaaqa indhihiisa ka muuqda wuxuu ku dhaaranayaa dhammaantood inuu ciribtiraayo. sidaas ayay ku qabsadeen Titaniska darbigii weynaa ee Maria. laakiinse Eren wuxuu arkaa wax sida flashback oo kale ama riyo oo aabihiis dhahaya haddaa rabtay inaad badbaadiso Mikasa iyo dhammaan dadka oo dhan waa inaad samaysaa waxa aniga ku dhahayo. Erenna ku celceliyaya aabba iga foq maxay tahay waxa igu sameey rabtid. Erenna markuu hurdada ka soo kaco wuxuu arkaa furiya aabihiis ugu balan qaadayo qortiisa ugu jiro. dibadda markay u soo baxaana waxay iska war helayaan inay ku sugan yihiin magaalo kamida darbiga labaad ee Ross. Armin oo markaas oo xariif ah ayaa awoogiis ugu soo shaxaadaa 3 rooti. rootigaasoo dadka maaha ku sugan xataa wada gaarin. mid waardiyaasha kamida wuxuu leeyahay cawaantan sida xoolaha kale isku dagaalaysa arag haddii Titaniska cuni lahaayeen anigoo cuntada cunayna qalqiin ma gasheen. Erenna intuu u tago darbo u geliya wuxuu leeyahay doqoyo weligaa hal kamid ma aragtay hal kamid haddaa arkaysaan uma hadli lahayn asigoo mar kale gacan u qaadeen oo ay Armin intuu soo dhexgal wuxuu ku leeyahay iska cafi waa culigeed gaajeysan oo ku barya iska cafi. waardiyaha intuu bixi wuxuu leeyahay akhlaaqda cunuga yar ka baro idin ma liiday. Erenna wuxuu dhahaa intaa baastirinta wuxuu cuni lahaa inaa iska dhinta Iran aniga meesha waqtiga iiga lumooy inaa darbiga Maria u laabta liiga baahan yahay. eeyahaas Titaniska waa ina ka arsana waxay nagu sameeyeen aniga waxaan qashinka uma baahiyay ogey ayga u baahan hadaa doonto. Armin wuxuu leeyahay Eren gaajaa ku hayso ma cuntid xitaa waxa sameynaysid. Erenna wuxuu leeyahay anigu Titaniska iska ciid karnaa sababtoo ah waxaan nahay geesiyaal. Armin wuxuu u sheegay in ay taas macquul aysan ahayn waa inaa darbigan gurigiisa aan ku jirno si aan u badbaadno haddaa ka fiirsanayso waxa u dhimana sida hooyadeen iyo aabeena camal u dhinteen. markaasoo Eren wuxuu leeyahay aniga cawaantaas cuntada isku dagaalisoo kale ma yihi ee adiga cuntada haddaa cunaysa cun waxyoo daciifka. markaasay Mikasa Eren feer ku aamusiyey. Mikasa waxay ku leedahay hadduu Armin daciif yahay anigu xataa sidoo kale waxaan nahay daciif anigu Titaniska inaan ka cararno waa awoodi weyn waana awoodi weyn anigu keliyan inaan ka cararno cuntada hadda cunna xataa dadka keensada xataa ma nihi daciif nooceena oo kalaa ma awooda xataa hal Titan inuu dilo shay keliya awoodna ayaa ah ma nolosha hore u sii wada sida hooyada ay sheegtay. markaasay Armin ee rootiga ka qaaday ee afka u geliyay ee leedahay cun ee noolaw aniga Eren inuu baahi u dhinto uma ogolaahayay oo intee hooyadiis ka dhimatay waaba tanaahe. markaasaa dowladda waxay go'aansatay dadka in loo kala qaybiyo 2 qaybood dad beeraha falaya si cunto loo helo iyo dad dagaalka loo diraayo si loo soo xoreeyo darbiga Maria. halii dagaalka loo diray cadadkoodu wuxuu ahaa 250,000 oo qof halka ay ka soo hareen 100,000 oo kaliya. warashada faa'iidada naftooda ayaa ahaa inay cuntada ku filnaatay cadadka dadka darbiga ku jiray. dadka dagaalkaas ku dhintana waxaa kamid ahaa Armin awoogiis. Erenna wuxuu ku leeyahay eedo waxaa laga hooshtaa Titaniska haddii ay jirto waddo aan ugu guulaysan karno waa soo cesho karnaa caalamkii aan ku noolaa jirnay. sidaas darteed Armin aniga waxaa ku biira tababarka ciidanka sanadka soo socda si aan uga mid noqdo kooxda saaxiibinta. Arminna wuxuu leeyahay aniga xataa tababarkaas waa ka qayb galaa aniga weligeed sidaa inaan si aado uma baahna waa ka qayb galaa tababarkaas. Mikasa xataa waxay leedahay sidoo kale Eren meel walba aadayo waa aadaa si caafimaadkiisa u ilaaliyo. waaw Mikasoo kale waa dhif ii naada ma la hir runtii. markaas wuxuu dhahaa waayahay saddexdiinaba waa ku biireena. ugu dambeyn Eren iyo Mikasa iyo Armin way ku biireen xirada tababarka 2 sano ee waxay soo qaateen tababar adag haddana waxay qaadan rabaan 3 sano oo tababar ah tababarkaasoo ay ku baranayaan sida loo isticmaalo aaladda loo yaqaan ODM gearka. Eren tababarkan ku guulaysan doonaa mise ku guuldareysan doonaa sideena u isticmaali doonaa aaladda loo yaqaan ODM gearka. su'aalahaas oo dhan insha Allah waxa ogaa doonaa xalqada soo socota. haddii ay tahay janaalka booqashadaada kugu horeysay saaxiib like iyo subscribe noo saar si ay dhiirigelin noo noqoto. Eren oo barashada aaladda ODM gearka ku dhibtooday iyo asxaab fara badan aan baran doono. Eren iyo Armin oo barteen saaxiibayaal ayagoo kale oo dhib soo maray. xalqada soo socota iftiinkii cabsida badan ku hoos dugnaa